بسم الله الرحمن الرحيم ومالين تلادها tobanka bisha March sanadka 2026 oo ku beegan 11ka bisha Ramadaan sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii wararka maanta qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah iyadoo dagaalka bariga dhexe uu socdo toddobaadkii labaad Iiraan ayaa xoojisay duqeymaha ay ku hayso bartilmaameedyada xasaasiga ah ee ku yaal gudaha Israa'iil ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ay beegsadeen xarumaha kaydka shidaalka iyo kuwa sifaynta batroolka ee magaalada Haifa gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan oo si cad meesha uga saaray wax xabad joojin iyo wada xaajood ah ilaa sida uu yiri cadawga sanka laga jabinayo si aysan mar dambe ugu soo haweysan dalkiisa militariga Israa'iil iyo Mareykanka oo xilligan duqeymo ka wada magaalada Dhahran ee caasimadda Iiraan iyo magaalooyin kale oo ku yaal dalkaasi Iiraan oo sidoo kale duqeymo ku qaaday dalalka Khaliijka Netanyahu oo ku gacan sayray hadal ka soo yaray Trump oo ahaa in dagaalku uu dhamaad ku dhow yahay dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan wixii war ah ee degdega ee soo kordhaynta inuu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka maanta Nimca Cabdikariin Timacade oo barnaamijka ila talantaalinaysa ayaa inoogu bilaabaysa wararka kuwada ugu dambeeya Nimca mahadsanid Mawlid maanta waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ciidanka militariga Iiraan ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen warshadaha sifaynta shidaalka iyo haamaha kaydka shidaalka ee ku yaala magaalada Haifa ee waqooyiga Israa'iil iyagoo adeegsanaya diyaarado aan duuliye lahayn militariga Iiraan ayaa xaqiijiyay in weerarka lagu qaaday warshadaha shidaalka ee Haifa uu jawaab u yahay weerar hore oo lagu bartilmaameedsaday haamaha kaydka shidaalka ee gudaha Iiraan goor sii horeysay oo maanta ah warbaahinta Israa'iil ayaa tabisay in gantaal laga soo riday Iiraan oo ku wajahnaa Israa'iil la qabtay telefishinka Al Jazeera ayaa sidoo kale sheegay in laba gantaal oo lagu soo tuuray Israa'iil mid ka mid ah hawada lagu qabtay halka kan kalena uu ku dhacay badda u dhow magaalada Tel Aviv isla wararka Israa'iil militariga Israa'iil ayaa sheegay in hadda ay la tacaalayaan gantaalo laga soo tuuray Iiraan oo ku wajahan Israa'iil iyagoo xusay in nidaamyada difaaca hawadu ay ka shaqeynayaan qabashada qatartan telefishinka Al Jazeera ayaa sidoo kale xaqiijiyay in seeriga digniinta ka bixiya gantaalada laga maqlay Tel Aviv iyo goobo kale telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in qaybo kamid ah gantaal Iiraan laga soo tuuray oo la qabtay ay ku dhaceen deegaanka Ashdod oo ku yaala koonfurta Tel Aviv dhanka Iiraan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee loo yaqaano IRGC ayaa sheegay inay soo rideen dayuurad aan duuliye lahayn oo ah nooca Heron oo ay ku tilmaameen diyaarad cadow taas oo lagu soo riday meel u dhow caasimada Dhahran wararka xagga Iiraan aynu ku sii soconay gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Baqir Qalibaf ayaa diiday fikradda ah in dhamaadka dagaalka lagu gaari karo wada hadal lala yeesho Mareykanka iyo Israa'iil qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayuu ku yiri dhab ahaantii ma raadinayno xabad joojin waxaan aaminsanahay in gardarolayaasha afka la jabiyo si ay cashar u bartaan isla markaana aysan mar dambe ugu fakirin in ay weeraraan Iiraanteena aan jecelnahay isla wararka Iiraan afayeenka dawladda waddanka Iiraan Fatima Mohajirani ayaa sheegtay in dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan oo sababay dhimashada 193 caruur ah ilaa iyo hadda iyadoo ilmaha ugu da'da yar uu yahay gabar 8 bilood jir ah Mohajirani oo ka hadlaysay Tehran halkaasi oo ay ku qabatay shir jaraa'id waxa ay soo bandhigtay sawirada caruurtii la dilay waxaana ay sheegtay in ilmo 4 bilood jir ah sidoo kale uu ku dhaawacmay dagaalka sida ay warisay wakaaladda wararka Iiraan ee Mahir Mohajirani ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixisay weerar lagu qaaday xarumaha caafimaadka iyadoo sheegtay in ilaa iyo hadda 11 shaqaalaha oo dhanka caafimaadka lagu dilay weerarada waxay sheegtay in 52 xarumood oo bixiya adeegyada caafimaadka 29 xarumo caafimaad iyo 19 cutubyo gurmad degdeg ah
iyo sidoo kale 16 ambalaas la weeraray halka 4 ambalaas iyo hal dayuurad oo gurmada la burburiyay. xagga Israa'iil militariga ayaa shaaciyay inay bilaabeen muujad cusub oo weerar ah oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo ku yaala caasimadda Iiraan ee Tehran. warbaahinta Iiraan ayaa dhankeeda sheegtay in nidaamyada difaaca hawada ee koonfurta bari ee caasimadda Iiraan la howlgeliyay. markana haddii aynu eegno weerarada kale ee Iiraan ay ku hayso dalalka gobolka xagga Imaaraadka Carabta, mas'uuliyiinta Abu Dhabi ayaa sheegay in ay ka jawaabeen dab ka kacay xarun ku taal aagga isku dhafka ee warshadaha ee Ruwais kadib weerar ay fulisay diyaarad aan duuliye lahayn. xafiiska warbaahinta ee Imaaraadka ayaa sheegay in ilaa hadda wax dhaawac ah aan la soo werin. wasaaradda gaashaandhigga ee Qatar ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida ay qabteen gantaal lagu bartilmaameedsaday dalka. arrintan ayaa timid kadib digniin sare oo Qatar ah oo la diray, waxaana xigay dhowr qaraxyo ah oo laga maqlay hawada sare ee caasimadda Dooxa ee wadankaasi Qatar. wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu jecleecno, aqalka madaxtooyada dalka Ruushka ee loo yaqaan Kremlinka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo qadka telefoonka xalay kula hadlay madaxweyne Donald Trump uu soo bandhigay fursado kala duwan oo lagu dhexdhexaadin karo dagaalkan laguna yareyn karo xiisadda. afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov oo la hadlay dadka wararka fidiya ayaa diiday in uu bixiyo faahfaahin ku saabsan talooyinka Putin, laakiin wuxuu sheegay in soo jeedamahaasi weli miiska saaran yihiin. Peskov ayaa ku nuuxnuuxsaday in Ruushka uu diyaar u yahay in uu bixiyo caawimaad kasta oo lagu yareyn karo xiisadda bariga dhexe. geesta kalena wararka ka imaanaya dhanka Turkiga haddii aynu jaleecno, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa u sheegay dhigiisa Iiraan Abbas Araghchi intii lagu jiray wadahadal qadka telefoonka ah oo in xadgudubka hawada Turkiga ay tahay mid aan la aqbali karin. warka ayaa intaasi ku daraya in Fidan uu u xaqiijiyay Araghchi in Turkigu qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si uu uga hortago xadgudub kasta oo hawadiisa lagu sameeyo. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kale sharaxay baahida loo qabo in laga fogaado tallaabo kasta oo wiiqaysa amniga gobolka isla markaana khatar gelinaysa dadka rayidka ah. dhanka kale, ilo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in Araghchi uu Fidan u xaqiijiyay in gantaalada galay hawada Turkiga aan laga soo ridin xagga Iiraan, isla markaana waxa uu ballan qaaday in baaritaan dhammaystiran la samayn doono. war kale oo Turkiga la xiriira, wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa sheegtay in nidaamka difaaca gantaalada ee Patriot la geynayo bartamaha dalka maalin kadib markii NATO ay hawada ku qabatay gantaal ballistic ah oo ah kii labaad oo soo gala hawada dalka Turkiga. war kale oo colaadan la xiriira, telefishinka CNN ee Mareykanka laga leeyahay ayaa soo xigtay mas'uuliyiin sheegaya in la wareegidda kaydka uraniumka sida aadka ah loo kobciyo ee Iiraan ay u baahnaan doonto ciidamo badan oo Mareykan ah oo dhulka ka howlgala. wareegyada ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka hadlay suurtagalnimada ah in la diro ciidan si ay gacanta ugu soo dhigaan ama ay u burburiyaan uraniumka Iiraan, balse howlgaladiisa ay u baahnaan doonaan ilaa 100 askari. wareegyadu waxay sidoo kale sheegeen sida ay warisay CNN in awood military oo kaliya aysan ku filnayn in la tirtiro uraniumka haddii aan nidaamka Iiraan gebi ahaanba meesha laga saaray. isla wararka colaadda bariga dhexe, hay-adda la socota ammaanka maraakiibta ee UK laga leeyahay ee magaceeda loo soo gaabiyo UKMTO ayaa sheegtay inay heshay warbixin ku saabsan dhacdo amni oo ka dhacday meel 36 mayl badeed ka xigta waqooyiga magaalada Abu Dhabi ee gacanka Carabta iyo koonfurta galbeed ee marinka Hormuz. kabtanka markabka la weeraray ayaa soo sheegaya in uu maqlay qarax xooggan isla markaasna uu arkay wax ku dhacay biyaha meel u dhow markabka xamuulka ah. waa hagaaga wararka Israa'iil aynu dib ugu laabanay waxa soo baxay war uu muuqday inuu jawaab yahay hadalkii xalay uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa in dagaalku uu dhammaad yahay. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku digay in dagaalka ka dhanka ah Iiraan uusan weli dhammaan, isagoo carabka ku adkeeyay in weerarada socda ay wiiqayaan nidaamka halkaasi ka jira.
hagaag bal markan aynu eegno wararka ugu dambeeya ee haatan soo dhacaya telefishinka Fox News ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa haatan wuxuu tabiyay war uu ku sheegayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay suurtagalnimada wadahadal uu la galo Iran arintani waxay ka duwan tahay hadaladii Trump markii hore uu sheegayay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay hadda soo tuurtay war ku aadan in la xiray xarunta sifaynta batroolka ee magaalada Abu Dhabi ee la yiraahdo Ruwaisi taasi oo la xiriirta xaalado dhanka ammaanka ah Ali Larajani oo ah mas'uul sare oo ka tirsan dawladda waddanka Iran ahna madaxa golaha amniga qaranka ayaa waxa uu sheegay in furitaanka Hormuz uu yahay riya maalmeed waxaana markaasi uu sheegay in gebi ahaanba arrintaasi ay tahay mid aan suurtageli karin ilaa iyo dagaalka inta uu socdo waa hagaag daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa xubinta falanqaynta ee barnaamijka waan ku eegi doono hadallada iskhilaafsan ee dhowaan ka soo yaray madaxda Mareykanka iyo Israa'iil oo la ogyahay in dagaalka ay si wada jir ah ay ugu qaadeen Iran iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ka cusub dagaalkan bariga dhexe ka aloonsan balse marka hore waxaynu ku hormaraynaa warbixin ku saabsan maxay Iran ugu gudbaysaa marxaladda ridista gantaalada madaxyada culus warbixinta waxaynu hayaa wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Iran waxa ay sii kordhinaysaa fariimaheeda militariga iyadoo ay sii kordhayaan dagaalka ay kula jirto Israa'iil iyo Mareykanka waxaana ay ku dhawaaqday in aysan mar dambe ridi doonin gantaalo madaxyadooda qarxa ee miisaankooda oo ka yar yahay haltan talaabo ka turjumaysa isbedelka lagu kordhinayo heerka burburka gantaalada balastiga iyo awoodaha ka hortaga ku dhawaaqistan waxaa jeediyay taliyaha ciidamada cirka ee ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga IRGC sarreeye guud Majid Musafi isagoo xaqiijiyay socoshada weerarada jawaabta u ah Washington iyo Tel Aviv waxaana uu ballan qaaday in weerarka ka dhanka sida uu yiri cadawgu uusan hal daqiiqo istaagi doonin sida uu sheegay Musafi gantaalada la ridi doono mustaqbalka miisaankoodu kama yaraan doono hal tan iyada oo tirada ridistu ay sii kordhin doonto iyo baaxadda hirarka gantaaladuna ay sii fidi doonaan xaaladan qabiirka arrimaha militariga sarreeye guud Xasan Juni ayaa aaminsan in hadalkani uu xambaarsan yahay macnayaal la xiriira dabeecadda mabda'a difaaca Iran oo inta badanihi ku dhisan gantaalada balastiga kuwaasi oo ay waragto aaladda ugu weyn ee lagu dheelitiro awoodda hawada ee ay kaga horeeyaan cadawgeeda isaga oo la hadlaya telefishinka Al Jazeera Juni waxa uu tilmaamay in Iran ay dhisaysay kaydkeeda militariga ee hubka noocaasi ah muddo sanado badan ah oo diyaar garow ah oo ku aadan suurtagalnimada iska horimaad si ay ula sinaato farqiga awoodaha hawada ayna kula loolanto Mareykanka iyo Israa'iil sida uu sheegay qabiirka militariga korarka isticmaalka gantaalada balastiga waxa uu ku socdaa saddex heer oo waaweyn waatan koobaad ee miisaanka madaxa qarxa ee gantaalada ayaa hadda waxa uu gaaray haltan heer la filayo in uu sii kordho tan labaad dabeecadda qaraxa sida qaraxa kala firdha amaba qaraxyo kale oo koox ah oo kordhinaya saameynta burburka iyo hagaajinta saxnaanta ku dhaca iyo weeraro toos ah oo lagu beegsado bartilmaameedyo aad u xasaasi ah qabiirka militariga Juni waxa uu ka falceliyay hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku sheegay in la burburiyay 80% awoodaha militariga ee dalka Iran isaga oo sharaxay in qiyaastani ay u badan tahay in ay ku saleysneed hoos u dhaca xawaaraha ridista gantaalada ee Iran Juni waxa uu muujiyay in aaminsanaantiisaasi in weerarada cirka ee xoogana ee socday 11 maalmood ay shakila'aan burburiyeen qayb weyn oo kamid ah kaydka hubka ee Iran balse waxa uu carabku ku adkeeyay in labada dhinacba midkoodna uusan haynin xog sax ah oo ku saabsan cabirka kaydka hubka waxa uu qiray in ay aad ay u adag tahay in si sax ah loo qiyaaso baaxadda qasaaraha isagoo intaasi ku daray in haddii xogtaani horay loo heli lahaa waxa suurtagal noqon lahayd in si sax ah loo ogaado meesha uu yaallo loona beegsado si toos ah waa hagaag aad buu mahadsan yahay Maxamed oo inoo soo koobayay warbixintan mawlid aynu ku sii soconay arrimahan maxay tahay sababta Netanyahu u leeyahay dagaalkii wali ma dhamaan iyadoo la ogyahay in xalay Trump uu jeediyay hadalkan cagsigiisa ah oo ku aadanaa in dagaalku uu dhamaaday ama uu ku dhow yahay dhamaad nimca waxa muuqanaysa soo xoogaysanaysa dagaalkan inaysan isku ujeedo kala ahayn Mareykanka iyo Israa'iil marka laga tago in la weeraro Iran waxana moodaa madaxweynaha Mareykanka inuu hadda wado dib u gurasho waa tan aynu ka hadlaynay inuu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waliba Trump isaga wacay Putin
hal saac bay telefoonka ku wada hadlayeen waxaana markaasi xitaa uu ka codsaday dagaalka in sidii lagu joojin lahaa xalka uu keeno waxay u muuqataa taas inay ka duwan tahay hadafka Israa'iil iyo Netanyahu oo ah dagaalkan in la sii wado waxyaalaha Israa'iil ay walwalka weyn ka qabtaa waxa weeyaan in ay dhacdo sida arrintii Xuutiyiinta oo Mareykanku iskiis heshiis ula gaaray arrimaha marka waxay muujinayaan warar kale oo hadda soo baxay saacadii ugu dambeeyay oo la xiriira mowqifka dagaalka iyo sida dagaalka loo galay iyo waxa ka duwan markii dagaalka uu bilowday oo Israa'iil ay ku dhaqmantay oo dhowr qodob la arkay waxaas oo idil ayaa u muuqanaya in la isku khilaafsan yahay dhamaadka dagaalka warkan hadda markaynu tibinayno Netanyahu uu leeyahay ma aqbalayno dagaalka in la joojiyo waa tan Trump Fox News hadda uu la hadlay uu leeyahay waxaan diyaar u ahay inaan la hadlo Iran wada hadal la galo inkastoo Iiraaniyiintu geed dheer imika ay saaran yihiin oo aysan ogolayn wax wada hadal ah laakiin haddii dagaalka la joojiyo ayaga qudhooda qubrada waxay leedahay way ka soo degi doonaan miiska wada hadal ayaa la iskugu imaan doonaa la xiriira arrintan Mareykanku waxa laga yaabaa inuu aaminsan yahay Iran inay jilicsan tahay oo wada xaajoodada markaasi la sii abaqaado laakiin Iran way ka duwan tahay caynkaasi oo hadda waynu arkaynaa waxay leeyihiin waxaan isticmaali doonaa gantaalada kuwa ugu miisaanka weyn oo kan ugu yar uu yahay hal tan iyo waxa ka sareeya calaamadahaas waxay muujinayaan in dagaalku weji kale uu ka gelayo dhanka Iran laakiin dhanka Israa'iil iyo Mareykanka aad moodo in ay muuqanayaan farqi weyn oo dagaalka u dhaxeeya way dhici kartaa arrinta inay tahay arrin siyaasadeed iyo xaalad dagaal oo Iran lagu qaldayo bacdama Mareykanku si hoose u wado qorshaha ciidamo dhanka dhulka in la geliyo wadanka Iran ama ay ku degaan ciidamo khaas ah xarumaha warshadaha nuclearka Isfahan Natanz iyo Fordo walow ay adag tahay in la helo nuclearka ku jira ka soo qaad xarunta Isfahan oo kale ama Natanz ilaa iyo 60 mitir ayaa dhulka loo qoday ciidan 200 ka kooban oo halkaas diyaarada lagu geeyaa ma awoodi karaan weeye inay qodaan xarumahaas waaweyn nuclearka la aaminsan inuu ku hoos jiro waa uraniumkii la bacrimiyay ama la tayeeyay way adag tahay taasi waayo waxa loo baahan yahay qalab culus wiishash iyo cagafyo iyo qalab kale laakiin Mareykanku ma awoodaan marka arrintaas inay sameeyaan qalabkan ma ahna qalab meel yaala oo intaad ku degtid diyaarada si fudud hawada uga degatid xaruntaasi aad ka soo qaadanaysid qolka xafiiska laga galo xarunta warshada qalabkan meel hoos u yaala oo mana suurtagali karta Mareykanka inay soo qabtaan qalabkaasi laakiin waxay arrimahan ku soo aadayaan iyadoo maanta lagu wado in ay gaaraan Israel Stephen Witkoff ergiga Mareykanka ee bariga dhexe iyo Jared Kushner wiilka Trump sodogga u yahay waxaana la aaminsan yahay inay wadaan dhambaal Mareykanku dagaalkan ma sii wada karo Israel qudeeda ma sii wada karto laakiin hadafka Netanyahu uu leeyahay wuxuu yahay Iran in meesha ka baxdo nidaamkan meesha inuu ka baxo haddii dagaalku sidan ku istaago Iran baa guuleysatay hal laga dilo hogaamiyahoodii dhaawac badan loo geysto laakiin hadafyadii Iran loo weeraray lama gaarin waa tan koowaad in la burburiyo uraniumka awoodda gantaalada meesha laga saaro nidaamka gacanka islaamiga wadanka fawdo uu noqday sida Israa'iil ay wadatay isla markaas la kala qaybiyo ugu dambeyntii wadanka oo Iran dambe aysan awood yeelan oo ay noqoto sida ama Syria oo kale oo Israa'iil waxa ay doonto ka samayso ahdaaftaasi lama gaarin dilka Ali Khamenei ma ahan hadaf weyn nin odaya oo 87 sano jir ayuu ahaa isla markaasna waliba xanuunsanaa oo saacad kasta dhiman karay haddii xitaa aysan ku imaan dilkan inkastoo qofka markii Allah uu qoro uu geeriyoonayo laakiin hadaf dagaal ma ahayn ahdaaftii marka dagaalka loo galay meesha kama muuqata Israa'iil inay gaartay Mareykanku uu jeclaan lahaa Trump sida xalay uu ku dhawaaqay inuu guul sheegto dagaalkana uu soo gabagabeeyay xitaa iyadoo Iran ay hubaysan tahay awoodeeda ay leedahay uu jeclaan lahaa marka waa halkii abwaanka Soomaaliyeed uu ka yiri haddaad jamato geed adag oodan hayn wax ku jira jabin maysa gacanteeda marka waynu arki doonaa sida iskula jaan qaadaan doonista Netanyahu iyo rabitaanka Trump waa gartay marka maxay yihiin wararka qubaradu ay sheegayaan in Netanyahu oo horaantiiba qayaanay Trump ama bilowgii dagaalka isla markaana hadda laga yaabo in Trump laftigiisa uu qaado
tallaabo Israa'iil ay sarraali ka ahayn. نوع عرفتان وارين لا ياب له mid kamid telefishinada wadanka Ingiriiska ayaa waxa ka hadlay nin khabiir ah oo Israa'iili ah wuxuu leeyahay dagaalka markii uu bilowdayba waxyaalo badan oo aan la isku raacsanayn ayay Israa'iil samaysay oo Netanyahu waxaad moodaa inuu khiyaanay Netanyahu waa tan koowaad dilka Ali Khamenei ma ahayn hadaf labadu isku raacsan yahay ayuu leeyahay ninkan khabiirka Israa'iiliga waayo si kastoo xitaa loo dilo Ali Khamenei waxba macnaa ma aysan sameeyeen dagaalkan u sameeyeen laakiin arinta la yaab kale waxa weeyaan dad la shaqeynaya Mareykanka waa sida ninkan khabiirka hadalka u dhigay ayaa xilligaas waxay la joogeen Ali Khamenei markii la dilayay arintaas marka waxay keentay in la fahamsan yahay in Mareykanka qorshe uu watay sida Venezuela oo kala ah oo nidaamka kacaanka islaamiga laga soo dhex saaro oo markaana wadanka la wareega Mareykanka heshiis la gala xagga batroolka iyo heshiis guudba laakiin Israa'iil ay arintii dhaaftay waayo ma dooneen Israa'iil sida Venezuela oo kale inay u dhacdo Iran waxay doonaysaa ayuu leeyahay ninkan khabiirka gabi ahaanba meesha laga saaro nidaamka kacaanka islaamiga wadanka la burburiyo ahdaaftaas ayuu Netanyahu watay arintii marka dagaalka uu bilowday waa tan marka la dilay dadkii la joogay Ali Khamenei oo ah kuwii Mareykanka xiriirka ula lahaa waa sida ninkan hadalka u dhigay cid cadeyn karta warkan ma jirto ama xaqiijin karta dhanka Iran lagama xaqiijin lamana beenin laakiin ninkan khabiirka wuxuu leeyahay waxay u muuqataa ficiladaasi Netanyahu inuu ugu talagalay dagaalku inuu sii fogaado macluumaadka sirdoonka iyo xogta la siiyay Mareykankana inta waxay u muuqdaan jahwareerin inay yihiin waxa kale oo arintan sii cadeynaya ninkan uu sheegayo in la burburiyo xarumaha kaydka shidaalka ee Iran iyo warshadaha batroolka lagu sifeeyay intaba Mareykanku ma qabo waayo Mareykanku wuxuu qabaa inuu ka faa'iideysto xarumahan hadii wadanka uu gacanta ku dhigo laakiin Netanyahu wuxuu doonayaa in dadka Iiraaniyiinta iyo Mareykanka iska horkeeno oo aysan imaanin wax wada xaajooda arintiina way shaqaysay dadka Iiraaniyiinta waxay leeyihiin hadii Mareykanku uu rabo in uu la dagaalamo nidaamka kacaanka islaamiga maxaa loo burburinayaa goobaha kaydka shidaalka kaabayaasha bulshada waxyaalihii dadka noloshoodu ahaa arintaas marka waxay noqotay arin ah hadaf Netanyahu gaar u watay Trump marka waxa moodaa hadda inuu fahmayo arintaasi waana sababta hadda uu dib u goranayo uu leeyahay Iran wada hadal baan la galeynaa dagaalka waa soo dhamaaday suurtagalna waxa ah inuu ku dhawaaqaba in sidii xuutiga uu yiraahdo dagaalka heshiis baan la galay Iiraaniyiinta isagoo aan kala tashan Netanyahu laakiin markaas Netanyahu waxa laga yaabaa inuu qaato wadiiqooyin kale taasa dhici karta waa tahay mulid gabagabada ayaynu soo gaarnay colaadan marka loo eego Ruushka waxa uu ka dhawaajiyay inuu samarnaba dhexdhexaad ka noqon doonin haddaba iyadoo arintan ay jirto waxa soo baxaya suurtagalnimada ah in Israa'iil ay nuclear u adeegsan karto dagaalkan hadii Iran la jabin waayo markaasi muxuu noqon doonaa mowqifka Ruushka ee dagaalkan ku aadan runtii waa su'aal aad iyo aad u adag oo muhiim ah dhinac waxaynu ka eegaynaa dhanka Israa'iil dhinacna waxaynu ka eegaynaa Ruushka xagga Israa'iil aynu ka eegno Israa'iil dad badan oo khubara waxay leeyihiin nuclearka ay haysataa ma aha nuclearka farsamaysan waa nuclearka istiraatiijiga macnaheedu waxay tahay meeshii lagu dhuftaa waa burburaysa meesha ay ka haystaan Mareykanka iyo Ruushka hub nuclear oo farsamaysan oo lagu talagalay ciidamada iska soo horjeeda hubkaas marka ma haysato Israa'iil hadii ay isticmaalayso nuclear waa kii lagu dhuftay magaalooyinka wadanka Japan dagaalkii labaad ee adduunka waa nuclear halis ah oo gaarsiin kara halistaasi wadamada gobolka dariska la Iran laakiin waxa soo baxay war sheegaya in Putin uu kala hadlay Mareykanka iyo Israa'iil labadaba inay tahay qadcas in la yiraahdo nuclear baa la isticmaalaya hadii marka arintaasi ay timaado waxay noqon kartaa in dagaalka Ruushka uu soo gali doono hadii nuclear hantu ay gaarto sidoo kale Pakistan laftigeeda maxay sameyn doontaa waayo hadii nuclear lagu dhufto Iran wuu saameynayaa Pakistan waxaana dhici karta inay aaminsan tahay markaasi in iyada loo socdo oo markaasi ay noqotaa marka dagaal nuclear meesha inuu ka bilowdo waa suurtagal hadii la jabin waayo Iran in Netanyahu uu qaataa tilaabo lagu macneeyay sida qobrada ay sheegayso ismiidaamin oo yiraahdo nuclear baa isticmaalaya waa albaab furan way albaabkaasi laakiin
dhanka ruushka digniinta ka timid oo xitaa uu sheegay wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda waddanka ruushka oo uu leeyahay qadcas ayuu ruushka u dhigay arrinta nuclearka la xiriirta erey kale uu isticmaalay wuxuu yidhi iiraan waa jaalkeenu yidhi amniga marna ma aqbali doono iiraan inay jabto arrintaas marka waxay leeyahay saacadihii ugu dambeeyay waxay keeni kartaa isbeddel inay ku samayso maskaxda Netanyahu ee ah in la isticmaalo nuclear laakiin waynu ka sheekaynay Israa'iil inay aaminsan tahay haddii qatar la geliyo amnigeeda in nuclear isticmaasho ma ahan oo keliya in ay u isticmaasho cadowgeeda xitaa ayadana isku isticmaasho adduunyadana u isticmaasho taasaa marka waxay leeyahay way suurtagal bay noqon kartaa dhanka mowqifka ruushka bal ka waran ruushka mowqifkiisa waa cad yahay wuxuu leeyahay waa qadcas iiraan burburinteeda iyo nuclear loo isticmaalo warkaas ayaa wuxuu yahay warka ugu dambeeya oo dhanka ruushka hadda aynu ka haynaa dabcan laba maalmood ka horna halkan waxaynu ka sii daynay safiirka ruushka ee magaalada London oo yiri dagaalkan dhexdhexaad ka noqon mayno taasaa marka waxa laga yaabaa inay dhaliso arrin kale oo isbedel keenta waa hagaag aad baad u mahadsan tahay mawlid daawadayaashuna waa ay mahadsan yihiin intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wararka maanta oo halkan ay si wada jira idinkaga socodsiinayeen anagoo kala ah Nimcati Macadi iyo Mawlid Xaaji Cabdi si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda kusoo biir tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah Ramadaan Mubaarak